الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد الرسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. لن يرى ويدين تقوريسا إن بايسو ويدي وحويلي قدرت كان أهرامتا وعدنو عشر كان نجي هراء كجري miyaa laga helaa godad lamid ah oo maaragtay Soomaaliya laga helaa miyay jiraan? godadka way badan yihiin, godadka qaar ba waa si godadka hadda timeka iyo magaciisiga waqtiga iyo maaragtay masaafadii kala bedelay anu kulleyba ma arag, laakiin way jiraan. haddii la yidhaahdo taariikhda maxaa la yidhi maxaa la lahaa, waxaa ka wanaagsan wax sugan oo caddayn wata. laakiin hadallo badan markaan soo ururiyey siddeetamaadkii buuraha qaar baa jira meel kale looga sii dhex duso. wallahu aclam, intaasaan kaga baxayaa taa. su-aasha kale weydiinta kale aan u gudbaya insha allah. waayahay buurahan waa gabadh waxay tiri buurahan dalkeenna ku yaalla miyay jiraan wax cilmi baaris hore loogu sameeyey ama si kale maaragtay loo baaray? kolleyba way jiraan, sida laasgeelo kale markaan soo qaadano waxyaabaha taariikhiga ku sawiran buuraha keliya maaha, dhulyowga taariikhda tala waa sida maaragtay ceergaaboo kale, buurtan daaloo kale matalan. markaan soo qaadano buur heybe, markaan soo qaadano awdal meesha la yidhaahdo boon, markaan soo qaadano dhulyow badan baa jira ee taariikho fara badan yaal. aw barqadle arrin kaloo muhiimina waan doonayaa ina maaragtay idinla socodsiiyo, aan idinla wadaago oo ku saabsan buurahan iyo maaragtay waxyaabaha yaalla ee taariikhiga ah ee asalka ah ee la doonayo in la wada masaxo. taariikhdanada masaxaadda beri horaa lagu bilaabay, waa anigii idiin sii sheegay, oo qolooyinkan manaahiijta soo sameeya dagaal cad inagu soo qaaday annaga. matalan arrin baan rabaa inaan idinla wadaago oo ku saabsan taariikhdanada. matalan buurahan hadda matalan markaan soo qaadano saaxil oo kale markaan tagno, meesha la yidhaahdo dhagax boqor iyo dhagax suntaalle oo adiga area dacar buluq, waxa weeyaan waxyaalo badan baa jira. waxaa maqaal igu ah inay iminka 5 shirkadood wax noocaasa, shirkadahaasi macdan bay baarayaan, wax noocaas ayaa lagu soo galay. macdantan waxyaalo ka qaalisan baa jira dhulkan. dhagax boqor, soomaalida inta badan waxay tiraahdaa boqor baa fadhiisan jiray. waxaa laga yaabaa inay halkaas joogeen ambiyadii qaar inay joogeenaa laga yaabaa. waxaa laga yaabaa taariikhdii cilmigan la raadinaya ay doondoonayaan inuu meelahaas yaala ayaa suurtooda. cilmigaan idiin sheegayo waa kan ahraamta lagu dhisoo kale. matalan latituudyada cadceedda ka soo baxdo aan idiinsii sheegay, oo ilaahayna qur-aanka noogu sheegay qoraxda inay soconayso oo maalinba ay meel ka soo baxdo. waan idiin yidhi inaad barataan, idinku baraarujiyey diinta inaad barataan, tafsiirka qur-aanka aad barataan, oo aad barataan axaadiista rasuulka calayhi salaatu wassalaam, oo in badan aad arki doontaan. haddaba buurahan labadan dhagax la sheegaya ee iminka shirkadaaba la sheegaya, war macdantan wax ka qaalisan baa jira. waxaa laga yaabaa dhulkan hadda aan tilmaamay, laga yaabaa maaha 90% ay u badan tahay cilmiyadii dunidii hore yiilay
ilaa iminkana ay la-yihiin nimankan galbeedka ay la-yihiin in halkaaba yaalaan maxaa ka mid ah cilmigan wax dhismaha maxaa ka mid ah cilmigan caafimaadka maxaa ka mid ah cilmiga xidigaha waa barasho weyn weeye soomaalida aad bay ugu horeysaa cilmigan xidigaha ee astrolojiga loo yaqaano aad bay ugu horeysaa cilmiga daaweynta keliya maaha cilmiga qalabka lagu sameeyo farsamooyin badan baa jiray hubka daawooyinka ilaa iminka way daaleen wixiioo idil formulayaashoo idil ayaa yaalla dhulkan aan idin tilmaamay dadkii soo saari lahaa ee la soo bixi lahaa waa idinka wiilow waa adiga gabadhiyay waa adiga imow kaalay dalkii kaalay maaha keliya halkaan idin tilmaama hadda magacyada keliya aan sheegay maaha oo ilaa iyo waanigi idin sheegay ilaa iyo koonfurta buur heybe halka la yidhaahdo dhowr kale buuro kale ku yaalla meesha dhulkan la yidhaahdo gedo kasoo tag dhulkan imow mardha iyo imow kaale mardha waxa weeyaan kelinka ayay ka tirsan tahay buuro baa ku yaalla cilmi fara badan baa yaalla mabla waa buurtan dheer isku xira buuraha dhadheer isku xira min obokh ilaa iyo tajura buurtan ugul cilmi ballaaran baa yaalla taariikh badan baa taalla meeshan hadda keliya ay leeyihiin dixdan carta ka soo baxda oo aanba la tabin maxaa la yidhahdaa aanba la xusuusan xilli roobaadka un lasoo xusuusto gaaladana iska dhex maraan oo maaragtay wax badan ay kala baxaan wax badan ay ka baadhaan sidaas la mid renda dixda u dhow ee magaalada marta kadaalika waaba halkaa lagu tuhunsan yahay hantidii balqisa bilowgeedii hantidii faraacinadii hore qaarkood dhulkan aa idiin sheegay cilmigii wax lagu dhisay cilmigii wax lagu sameeyey formulayaashii inay yaallaan weeyaan wax loo soo kala ordaya macdan baan idiin baadhaynaa macdan baa la soo saarayaa maxaa kusii hoos jira in badan baa kusii hoos jirta cilmigan baa la doonayaa in lagala baxo oo aadan helin waayo dadkan galbeedka way hinaasa badan yihiin cid kale uma ogola inay wax soo saarto ama waxbay samaysay la yidhaahdo ma ogola horena waa idinku sii sheegay waayo ebidkoodba waxba maysan samaynin halkan bay ahayd halkii wax laga samaynayo annaga keliyana ma ahayne faraacinada kadibna boqortooyooyin fara badan baa soo baxeen africa oo wax soo saar fiican leh galbeed daawo laga keeni jirin ma jirto africa ayadaa isdaaweyn jirtay ayadaa waxeeda samaysan jirtay hal shay lagama keeni jirin galbeed inay wax ka qaataan mooye xitaa wixii la cuni lahaa halkaanay ka qaadanayeen markaas ayagoo daasadaysan inay soo celiyaan dib inoogu iibiyaan daawooyinka inay dhirtayna qaadaan misena dib inoogu iibiyaan oo hadday doonaan inagu sumeeyaan marka cilmigaas ballaaran baa yaalla dhulkan yaan ladiin hoosgelinin ka fiirsada shirkadaha way fiican yihiin laakiin dad aqoontii archaeologigana yaqaana ee geologigana yaqaana ee yaqaana maxaa la yidhaha anthropologistiyaal ah waa inay la socdaan dadaan aqoon lahayn dadka deegaanka waa laga helaya haddaan laga helayna dhulkaas waqooyi meel aan aqoonyahan joogin ma leh koonfur kadaalika meeluusan joogin ma leh galbeedka kadaalika markaan le galbeed waa kelinka shanaad city kadaalika mabla iyo rendana kadaalika iyo buurtan ugul iyo cartaba kadaalika jabuuti kadaalika boon kadaalika way joogaan aqoon-yahaan wuu joogaa dalkii hadduusan joogin kuwii dibadda qaarkood ha yimaadeen oo dadkan hala eega ha lala socdo maaha in keligooda lagu fasaxo oo lagula heshiiyo on percentage macnaa percentage lagula heshiiyo oo percentage badanaba ka haysanaa la yidhaahdo maaha percentageka badan ee ka qaadanaysid waxaa laga yaabaa cilmigan ay kala baxayaan meesha inuu kasii badan yahay marka waa in dad controla oo maaragtay la socda aqoontiina leh inay jiraan intaa waa talo marka insha allah haddii ayna weydiin kala jirin
waayahay weydiin kale kulleyba ma hayo ilaa iminka marka casharadeenna sidoodii bay u socdaan haddii alla yidhaa oo nabiyullaahi daawuud baan joognay calayhi salaam iyo nebi suleymaan ayaan wadi doonnaa insha allah ramadaan kariim wadicii baan ku jirnaa insha allah khayrka allah ina wada waafajiyo insha allah ilaahay idinkiisa waxaana waxaa lagu gaarayaa aqoon awoodda ugu saraysa waa aqoon waa aqoonta awood kale ma jirto ogow wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu